warliibaan shuluqan baas ee sababta u ah madaxweyne xasan sheekh iyo mahad salaad oo 20 sano ka badan saaxiiba inay isku dhacaan waa kuma awoodan faraha badan liibaan shuluq halku ka keenay maxay tahay sababta madaxweyne xasan sheekh looga fujin la yahay liibaan shuluq muxuu isticmaalaa ninkan waxa rabaa adigoo jiifa sariirtaada inaan ku fahamsiiyo sababta madaxweyne xasan sheekh maxamuud looga fujin la yahay ninkani isla markaana aan ku baro waxa uu yahay horta liibaan shuluq هذا مخالكن ديكسو قرح جنا ملان الجزء ده إلا صعب معلميه قدام بيو حنفيليا إن وكوبة مقالك مقعة لما شلق هذا وني كان حكومة هرتا نحن الصومالية حسن شيخ محمود أيا لغف جلنا يهي لما شلق وحنا قوتا إن ونقضم مشرح حزب جيسا إيه دولة قبلاتك قلمودك صوماليا حسن شيخ وحدونيا لما شلق إنه مدحوينك النقضة قلمودك hadda ogow si liibaan kursigaas uu koro xasan sheekh saaxiibo badan oo ka agdhawaa ayuu ku kala tageen waxa ugu dambeeya mahad maxamed salaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay saaxiibo siyaasadeed ahaayeen wax ku dhow rubac qarni dad badan ayaa bilooyin ka hor waxaysan sawiran karin oo aysan suuraysan karin inay arki doonaan mahad salaad iyo xasan sheekh oo laba saf ku kala jira isla markaana ku kala tagay siyaasadda waxa sababta daba iska liibaan shuluq warliibaankan muxuu isticmaalaa ana saw ku baro marka laga hadlayo waxbarashada ma yahay liibaan nin wax bartay liibaan dhinaca tacliinta iyo sooyaalkiisa gadaale nin wax bartay ma waxuu bartay liibaan waxa bartay okay dhinaca siyaasadda aan fiirno marka laga hadlayo siyaasadda liibaan shuluq siyaasadda Soomaaliya muddo dheer miyuu ku soo jiray liibaan shuluq siyaasadda Soomaaliya muddo dheer kuma uusan soo jirin oo ku soo jiray muddo dheer ku soo jiraa okay liibaan shuluq hada waxa uu raadinayaa isla markaana uu hanqal taagay inuu noqdo madaxweynaha galmudug Soomaaliya su'aashu waxay tahay miyuu u qalmaa liibaan kursigaasi haddii uu lacag helasa ma ka soo bixi karaa marka shakhsi aan la eego liibaan dabcan kursigaas hadii uu kama soo okay uu ka soo bixi karaa liibaan ma xas shaqo loogu fujilay asaga xas shaqo maxay isku fahmeen awood nooco liibaan leeyahay warkii oo kooban liibaan lacag uu leeyahay nin lacag haysta istaagi kara